maraykan maanta dunida wuxuu barayaa in la joojiyo silaaxa nawawiga ah oo aanu caalamka ku faafin. sababtu maxay tahay marka la weydiiyana wuxuu leeyahay waxaan ka cabsi qabnaa dad aan mas'uuliin ahayn inuu gacantooda ku dhaco ay dunida halaagsanaato. iyadoo taariikhda caalamka la leeyahay ummadda qudhe hayru mas'uulkee weli isticmaasha waa maraykanna. fi lcaalam ummad kaloo isticmaashay miyaa maqasheen? alumma alwaaxida hayru mas'uula ee dunida intay ku isticmaashay ku tijaabisay Hiroshima iyo Nagasaki iyo meelaha ka ku riday waa isaga. waa ariiqatu cowboy. soomaalida nin geel jira la yidhaahdo wax badan sameeya maydan aqoon muqaamarada iyo yacni nolosha waxaa ka yaqaana. maraykanna war xataa alcaabtiisu waxaan la cayaaro bal u fiirso cayaar kastoo maraykan ka timaada. cayaaraha maraykanku waa maxay? waa feedhka American football tan madaxa la istaro, bahashan budhka lala dhacee baseballka la yidhaahdo, almusaaraca bahashan layslagide ee caynkaasi loo isticmaalo. xataa wuxuu cayaarta u yaqaanaa caqliyada ah yaa xoog badan. that's all. hada dhaqankiisu waa ka 14 milyan oo red indianisa buu tirtiray. 14 milyan umma kaamila meel lahayd buu tirtiray. markaasuu dego wuxuu leeyahay xadaarad baan dunida u wada. xadaaradu soo wada waxay waa xadaara ku salaysan jamaajimu umma, madaxyo dad bay ku salaysanta. dad baa la gowracay, xabaalahoodii inta la dul fuulay baa lagu leeyahay xadaarad baanu soo wadnaa. maraykan soomaaliya wuxuu ka wadaana waa nafsu shay. siyaasadda reer galbeedna soomaaliya kama gadisna caalamulislaamiga kale siyaasadda ka jirta. waa nafsu shay. waa waxaad bosniya ku aragto, waa waxaad shiishaan ku aragto, waa waxaad algeria ku aragto. waa uun dariiqada waxiidka ah